الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داودياشada qiibaha qadarinta iyo qaayaha mudan meel kastoo idin joogtaan waxa ku soo dhawaataan mar kale iyo barnaamijkeena toddobaadlaha ee Madafan. barnaamijkeena Madafan waxaan ku soo qaadanaa qormooyinka kala duwan ee wararka kala duwan ee toddobaadkaasi ka dhaca dalka annagoo idinku soo gudbina barnaamijkeena Madafan. barnaamijkeena waxa halkan idinka soo gudbin doona anigoo Khadar Maxamed Maxamuuda qormada ugu horeysay barnaamijkeenan. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Tilaanyo ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib markii uu ka qayb galay shirkii maalgashiga ee Soomaaliland loogu qabtay wadankaasi Ingiriiska. taliyaha guud ee ciidamada booliska jamhuuriyadda Soomaaliland Sariye Guuto Cabdullaahi Fadal Iimaan ayaa shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ugu baaqay in ay si nabadgelyo uga qayb qaataan diiwaangelinta muwaadiniinta Soomaaliland. xubno ka mid ah golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ka qayb galay munaasabada ay ururka Sodra uu deeq waxbarasho oo bilaash ku siinayay qaar ka mid ah ardayda danyarta ah ee reer Soomaaliland. xubnahaasi iyo xubno kala duwan ayaan ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena Madafan intaan ku guda jirno daawadayaal. qormada ugu horeysay barnaamijkeenan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Tilaanyo ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib markii uu ka qayb galay shirkii maalgashiga ee Soomaaliland loogu qabtay wadankaasi Ingiriiska. xubintan oo faahfaahsan waxa inoo haya wariye Saki Daayir Xasan. waftigan ballaaran ee uu hogaaminayay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Tilaanyo oo safar shaqo oo qaatay muddo toddobaad ka badan ugu maqnaa dalka Ingiriiska furayna madaxweynuhu shirkii maalgashiga iyo horumarinta ganacsiga Soomaaliland ee sida wadajirka ay u soo wada qabanqaabiyeen wadamada Soomaaliland iyo UK kaasi oo shirkaasi guul weyn oo la taaban karo uu soo hooyay Soomaaliland soo jiitayna beesha caalamka kana markhaati kacday warbaahinta kala duwan ee caalamiga uguna baaqday dunida inteeda kale in la itiraafo Soomaaliland maadaama ay buuxisay shuruudihii looga baahnaa. shirkaasi uu mudane Axmed Maxamed Maxamuud Tilaanyo uu ka soo laabtay isaga iyo wafdiga uu hogaaminaya ayaa ahaa mid ku soo dhamaaday khayr. madaxweynaha Soomaaliland waxa uu salaan sharaf kaga qaatay madaarka cutub ka tirsan ciidamada qaranka ee Soomaaliland. mudane madaxweyne waxa salaataada u diyaara cutubyo ka tirsan ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. mudane madaxweyne ku soo dhawow. intaasi kadib madaxweynaha Soomaaliland ayaa warbaahinta kula hadlay qolka marti sharafta ee loo yaqaan VIP kaasoo tafaasiil ka bixiyay shirkii uu furay ee lagaga hadlayay maalgashiga iyo ganacsiga ee Soomaaliland ee ku soo gabagaboobay magaalada London ee dalka Ingiriiska ee madaxweynaha Soomaaliland uu ka soo laabtay. aad baan ugu faraxsanahay anigay waftiga la socdaaba inaanu dalkii ku soo noqonnay dalkii oo nabada ilaahay mahadi weeye. shirka aanu tagnay wuxuu ahaa shir loo qabtay maalgashiga Soomaaliland sidii loo maalgashan lahaa horumarkiisa taasoo wax weyn ka tari kartaa. shirkaasi waxaa shir aad loogu guulaystay buu ahaa aad loo yimid buu ahaa dowladda Ingiriiska iyo muxuu cidii kale yimidba aad iyo aad uga soo qayb galeen buu ahaa. marka shirkaas shir aad iyo aad aanu ugu faraxsannahay kuna soo guulaysanay ilaahayna rajaynayno inuu midhihiisa iyo faa'iidadiisa aynu wax ka aragno ayuu ahaa. taasi waa taa. mudane Axmed Maxamed Maxamuud Tilaanyo madaxweynaha Soomaaliland waxa uu si cadaan u beeniyay wararka sheegayay in madaxweynaha Soomaaliland aanu doorashada madaxtooyada la filayay in dalkan ay ka qabsoonto 2015 aanu isu soo taagi doonin kaasoo madaxweynaha Soomaaliland uu halkaasi ka cadeeyay inuu u sharaxan yahay doorashada madaxtinimada ee sanadkaasi la filayo. markaa tagay waxaa la faafiyay inaanan doorashada dambe isu soo taagaynin
taana waa dacadii badnaa ay walwalba socon jira weeye mar walba caafimaadkayga laga sameeyo taa waxaa le wax ka jiraa ma jiraan inta sharcigii ogol yahay waan taaganahay sharcigaa ogol wax alla waxaan qabaana ma jirto dalkayga iyo dadkaygana waan u shaqaynayaa waana u shaqayn jira waana u shaqaynaya insha allahu tacaala waxaana rajaynayaa aana ku kalsoonahay in shacbiga ummadooda ay kalsoonida siin doonaan marka aad iyo aad baa u mahadsantihi soo dhoweynta fiican sida wanaagsan aan noo soo dhaweysanahay sida caadadii lahayd aad iyo aad baa u mahadsantiin waxaana markii ay si rasmiya u soo cagadhigatay madaarka cigaal international diyaaradda siday madaxweynaha somalilan iyo wafdiga kooban ee uu hogaaminayey ugu soo dhoweeyey madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici oo ah kusimaha madaxweynaha xubno ka tirsan golayaasha qaranka sida goortida wakiilada golaha wasiirada taliyaasha ciidamada qalabka sida madaxda xisbiga talada dalka haya ee kulmiya mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan xukuumadda salaadiin boqorro waxgarad aqoon-yahano haween ururka qaranka ee naw qaar ka mid a mas-uuliyiinta xukuumadda iyo weliba dadweyne kale oo aad u tiro badan oo madaxweynaha somalilan ku soo dhoweeyey madaarka dadweyne aad u tiro badan ayaa madaxweynaha somalilan ku soo dhoweynayay inta u dhaxaysa madaarka cigaal international airport ee magaalada hargeysa iyo qasriga madaxtooyada kuwaasoo wadada hareeraheeda taagnaa waxaana madaxweynaha somalilan ay muujinayeen taageerada iyo weliba horumarka uu dalka ka sameeyey kuwaasoo luulaya calanka somalilan iyo caleemo qoyan iyo weliba ereyo u gaara madaxweynaha iyo wafdigiisa madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici ayaa ka qayb galay xaflad ballaadhan oo ay ku qalinjabiyeen ardayda wax ka barata jaamacadda hob university ee magaalada hargeysa sida xubintan oo faahfaahsan mar kale inoogu hayo wariye axmed saki daahir xasan munaasabadan lagu bayaaminaya dufcaddii sideedaad ee ka qalinjabisa jaamacadda hoob ayaa lagu qabtay hoteelka maasuur ee magaalada hargeysa waxaanay tiradoodu ay dhammayd 104 arday oo dhammaystay waxbarashada jaamacaddaasi waxaana kala qayb galay madaxweyne ku-xigeenka somalilan mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici wasiirka ciyaaraha wasiiru dowlaha waxbarashada wasiir ku-xigeenka shaqada iyo arrimaha bulshada agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta maamulka macalimiinta iyo waalidiinta ay ubadkoodu ka qalinjabiyeen jaamacaddaasi gudoomiyaha jaamacadda hoob brofesor najiib sheekh cabdikariin oo ugu horeyn ka hadlay qalinjabintaasi ayaa si kooban uga warramay sooyaalka waxbarasho ee ardayda dhammaysatay jaamacaddaasi iyo weliba jaamacadda laftigeedaba maanta waxaa qalinjabinaya 104 arday 104 arday ma aha arday caadi ah waa arday buuxinaysa oo cilmigii ay soo barteen iyo dadaalkoodii ku buuxinaya oo kaalin bannaanayd waddanka iyo ummaddaba u qabanaya marwe shukri xariir ismaaciil wasiirka hoggaanka shaqada iyo arrimaha bulshada ee somalilan oo la hadashay ardayda ayaa u sheegtay in aanay ardaydu qalin jabin hase yeeshee ay qalin qorteen waxbarashaduna ay tahay muhiim loona baahan yahay inay halkaasi ka sii wadaan xukuumadda ay ka tirsan tahayna ay diyaar ula tahay wax kastoo ay awoodo wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee somalilan oo isaguna madasha qalin jabinta ka hadlay ayaa yidhi ardadan qalin jabinaysa 104 arday ee isugu jira dibloomka iyo digriiga waxa weeye dalkeennu waxaanu nahay dal aan weli la ictiraafsanayn dan yara baynu nahay oo dan yartu ay ku badan tahay dawladdu hadday awoodayso inay meel wada geyso waxaasoo dhan iyadaa ka jecel inuu shaqeeyo injineerku iyadaa ka jecel in ninka dhaqaalayahanka economic wax ka bartay uu shaqeeyo iyagaa ka jecel inuu dhakhtarku shaqeeyo wasiirka wasaaradda ciyaaraha ee somalilan mudane cali siciid reegal ayaa ardayda u iftiimiyey sida ugu habboon ee shaqo ay ku heli karaan kana digay aafada taariibta iyo weliba dhibaatooyinka ay leedahay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somalilan mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici ayaa hambeleeyey ardayda waxaanuu ardayda xasuusiyey in kaalin muuqata ay ku yeeshaan horumarka kala duwan ee dalka ka socda hambalyada kale ee koowaad waxaa maanta leh cidda maanta loo dabaaldegayo 104 arday ee halka qalinjabisay ayaan leeyahay iyagana hambalyo hambalyadaa kadib intii idinka horraysay nin walba inbuu ku soo daray intiinan maanta baxaysa ee jaamacadaha ka baxaysa tiinan iyo kuwii sannan ka baxay la mid ahna
waxaa laydinka rabaa daldaloolka aqalka iyo dhammaystirkeeda nin walba meesha ka dhima inuu buuxiya laga rabaa maadaama aynu nahay dalan la ictiraafsanayn waxayna saaran mas-uuliyad wadaareed bayna saaran Soomaaliya haddaan nahay oday iyo inan iyo maaragtay culimo iyo caame gebina mas-uuliyad bayna saaran mas-uuliyadda wadaartayna saaran waxa weeyaan dalkeennana inaan nin walba hagardaamada ka daayo oo dalka siduu meel u gaari lahaa nin walba wax ku darsado haddaan noqonno ummaddan oo xooggeedii cidla fadhiyo oo waxba qabanayno xooggeedu khasaaro ku baxayo dee nin walba waxaad ogaataa inaad qayb ka tahay khasaarihii dalku dhacay waxaa loogu baahanya dhalinyaro laynaga baahan yahay inaadan fadhiin ee dalka wax ku darto oo socoto oo xitaa muddada adigu ama shaqo aad leedahay samaysanayso ama tu barayfad aad helayso ama tu dowlad helayso waa inaad shaqaysaa ood yacni intaad fadhii lahayd ama jiifi lahayd aad cidun wax ku dartaa mudane sayliic ayaa gebagabadii guddoonsiiyey shahaadooyinkii 10kii arday ee ugu horreeyey ardayda ka qalinjebisay jaamacaddaasi 140 arday ee ka qalinjebiyey jaamacadda hoob ayaa waxa ay ka kala baxeen 3 kuliyadood oo ka mida kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda hoob ay bixiso manaha markii ugu horraysay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka qayb galo arday ka baxday jaamacadda hoob axmed saki daar xasan iyo cabdilaahi cali suudi telefishinka qaranka Soomaaliland magaalada Hargeysa taliyaha guud ee ciidamada booliska jamhuuriyadda Soomaaliland sareeye guud Cabdilaahi Fadel Iimaan ayaa guud ahaan shacbweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ugu baaqay sidii ay uga qayb qaadan lahayn si nabadgelyo diiwaangelinta Soomaaliland ka socota iyo walibana sidii ay iskaga dhex qaban lahaayeen cid kasta oo aan u dhalan wadankan jamhuuriyadda Soomaaliland sida xubintan oo faahfaahsan inagu hayo wariye Mustafa Ibrahim Ismaaciil Saacadaale jenaraal cabdilaahi fadel iimaan taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland waxa uu horreyn ka warramay kaalinta ay ka qaadan karto sugidda dhalashada muwaadinku amniga qaranka Soomaaliland wuxuuna shacbiga ugu baaqay si loo ogaado dadka ku dhex dhuumanaya dalkeena iyo dadkeena Soomaaliland in ay qaataan dhalashada muwaadiniinta taasoo uu taliyuhu sheegay in imikaba ay si habsami uga socoto dhammaanba goobaha loogu talagalay in laga qaato sidoo kale taliyuhu wuxuu ugu baaqay shacbiga in ay iska qabtaan dadkaan u dhalan dalka Soomaaliland ee iyagu safafka la galaya una gudbiyaan ciidanka booliska ee ku sugan goobaha ay ka socoto diiwaangelintu waxaana ka mid ahaa hadaladii jenaraal cabdilaahi fadel iimaan kuwan waxaa ka bulshada reer Soomaaliland fariin uga soo gudbinayaa inay kaarka muwaadinka qaataan kaarkaas oo waxyaalo badan oo iyaga quseeya u fududeynaya haddii xagga nabadgelyada iyo xagga hawlaha kale loo ay u baahan yahay waxaa kale oo bulshada reer Soomaaliland ugu baaqaya inay qaataan kaarka muwaadinimada taasoo wax weyn ka taraysa nabadgelyada iyo waxyaalihii kale ay u baahan yihiin sidoo kale waxaan ku dhiirigelinayaa bulshada inay ilaaliyaan nidaamka sida ay u qaadanayaan kaarka taasoo nabadgelyada wax weyn ka taraysa sababtoo hadday isdhaafdhaafaan aan had iyo jeer waxaa iman kara buuq taasna waxaan u sheegayaa bulshada iyagoo sidii wanaagsaneyd ee walba howlaha ay nabadgelyada ay nagula shaqayn jireen inay goobaha diiwaangelinta ay safsafka u joogaan ee ay ka qaadanayaan kaarka muwaadinkana ay ciidanka booliiska la shaqeeyaan oo ilaaliyaan nidaamka safafka aad iyo aadna halka waxaan uga amaanaya bulshada reer Soomaaliland waxaan leeyahay oo dhammaan dadka reer Soomaaliland ku warinayaa siiba dadka imka caasimadda oo hawsha si wanaagsan uga socoto inay sidaa kaarka u qaataan ayaamahan ugu dambeeyana waxa aad iyo aad ay u badan yihiin dadka goobaha jooga oo aad iyo aad bay ugu badan yihiin dadkii ayaamaha hor qaadanayay waana sida ay dadku fiican ee u fahmeen qaadashada kaarka muwaadinka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane cali maxamed waran cadde ayaa kormeer ballaaran ku soo gaala bixiyay xarunta ugu weyn ee uu yaalo seerfarka diiwaangelinta Soomaaliland qormadani oo faahfaahsan waxa inoo haya maxamed foosi maxamed wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland cali maxamed waran cadde ayaa kormeer shaqo ku tagay xarunta weyn ee diiwaangelinta muwaadiniinta halkaas oo yaalo seerfarka haya daatada ama xogta muwaadiniinta oo ku taala xarunta cusub ee wasaaradda arrimaha gudaha ugu horeyna waxa ka hadlay shaqaalaha iyo howlwadeenada goobtani Yaasiin Cismaan Diiriye oo isagoo ah mas'uulka goobtan uga sareeya ayaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha waxa uu ka warbixiyay habka iyo hanaanka ay u socoto shaqadani isagoo sheegay in seerfarkana ay ka soo baxaan dadka labada jeer codeeyay iyo sidoo kale dhammaan xogta muwaadiniintu imka goobaha qaar waan eegi karnaa dadka toos u fadhiya halkan waan ka eegi karnaa oo ay toos ula socono qofka goobaha sida ay wax u wadaan iyo sida ay u sameynayaan toos baan halkan uga wadnaa marka wixii ciladaha ay ku yimaado iyo wixii
wax walba halkaan ka saxnaa marka dadweynaha kale waxaan ku dhiirigelinaa inaanay maxay mudane wasiir aanay ku noqnoqon systemkana waxaan u sheegaynaa inuu yahay midkii saxda ahaa ee aan lagu celin karin isagoo dhaatada online lagu eegi karo. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha cali maxamed waran cadde ayaa isna madashani ka hadlay isagoo sheegay in qalabkani yahay qalab casri ah. waxa wasiirku goobtan uu ka tusay warfidiyaanada dadka iyagu labada jeer isku dayay inay isdiiwaangeliyaan kuwaasi oo markiiba la qabtay isagoo xogtii ugu dambeysay ee ninkii ugu dambeeyey ee isku dayay laba jeer uu diiwaangeliyana la xidhay isagoo dadweynahan uga digay wasiirku inay ku kacaan inay laba jeer isdiiwaangeliyaan. wasiirka arrimaha gudaha oo ka hadlaya waxaa hadaladiisii ka mid ahaa waxaynu geyn doonaa dadka noocaasa xabsiyada laascaanood iyo cerikaabo ayaynu u rari doonaa haddii ala yidhaahdo halkaasay kusoo geerisan doonaan muxuu ahaye wixii dambe dee muxuu ahaye damcaana markay ogaadaan kuwii hore la geeyey almaqa ama la geeyey muxuu ahaye meelaha fogfog quraacda in lagala gaadhayn waxaan filayaa inaanay dib ugu celin doonin waxaan kii ku celiyo kul walba qura iskaga soo celaadaa doonto laakiin xabsigaa waxa weeya laascaanood iyo muxuu ahaye cerikaabo labadaa gobol ee aadka u fog baynu ku xiri doonaa si ay ugu cibro qaataan inta dambe haddii alla yidhahdo. xubno ka mid a golaha wasiirada jamhuuriyadda somalilan ayaa ka qayb galay munaasabad ururka sodra uu deeq waxbarasho oo bilaash ugu siinayey qaar ka mid a ardayda danyarta ee reer somalilan. xafladani oo ka dhacday hotel four season ee magaalada hargeysa ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka mid a golaha wasiirada ugu horeeya wasiirka wasaaradda maaliyadda jamhuuriyadda somalilan, wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada, wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga jamhuuriyadda somalilan, agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare, gudoomiyaha ururka sodra ee soo qaban qaabisay munaasabadani. kulankani oo ururka dhalinyarada ee sodra deeq waxbarasho oo bilaasha oo ay siiyeen qaar ka mid a dhalinyarada somalilan. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha ururka sodra waxaanu ka waayo warramay kulankan iyo ahmiyadiisa ee dhinaca dhalinyarada somalilan. isagoo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxaa hadaladiisii ka mid ahaa mashruucan waxaan bilownay sanadkii 2012 anuu ka duulina qorshaha 5 sano ee u yaala ururka horumarinta iyo daraasaadka somalilan ee sodra oo ah inaan ururku muddada 5 sano ugu horeysay uu jiro aanu hal hay'ad la xiriirin isagoo ka tusaale qaadanaya amba tilmaan u ah dhalinyarada somalilan inaanay waxay wadankooda u qabanayaan aanay hay'ad ku xidhin muhiimadda marka koobaad saaraan inuu wadanku yahay wadankoogii inuu wadankooga si mutadawacnimo ugu shaqeeyaan. waxay markhaati cad iga tihiin golaha xukuumadda madaxweyne siinaa dhisay inay 80% yihiin gole ka madax bannaan environmentka leda bulwadaha. taasi waxay keentay inay maanta nala fadhiyaan, waxay keentay inay saacad kasta albaabkooda noo furnaado. taasi waxay ku tusaysaa inay maanta joogto xukuumad dhiirigelinaysa dhalinyarada, xukuumad runtii wadanka iyo dadkaba u danaynaysa, xukuumad mar walba xooga saaraysa inay danta guud horumariso. taana waxaan mar walba ugu mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed maxamuud siilaayo iyo madaxweyne ku-xigeenka cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil oo ah labadii musharax aan doornay haddaan nahay dhalinyarada somalilan. wasiirka wasaaradda maaliyadda jamhuuriyadda somalilan cabdicasiis maxamed samaale ayaa iftiimiyey qorshaha cad ee xukuumadda jamhuuriyadda somalilan ee dhinaca dhalinyarada. wasiir samaale oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxau yidhi waxaan isbarbartaagaynaa ururkan iyo ururada kale ee sidan oo kale u shaqeeya. waxaanu ballan qaadaynaa inaanu gacmaha isqabsanoonu wax la qabanno. wasaaradda maaliyaddu sanadka 2015 miisaaniyadda waxaanu ku daray waxyaabo badan oo dhalinyarta u adeegaya, oo u adeegaya masaakiinta, oo u adeegaya agoomaha. waanu ku daray runtii way ku jirtaa. haddaanu horumarkii dalka ku mashquulno sida jaamacadaha iyo dhakhtarada, eega dhakhtarkii hargeysa sida iyo wasaaradda caafimaadka sida loo xidhayo, eega wasaaradda bedelka loo sameeyey, eega inta wasaaradood la dhisay, eega meel wal oo dalkeena maanta haldowlahay basaan wax uga qabanayno. wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada iyo agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare waxaanay dhinacooda sheegeen in ay aad ugu faraxsan yihiin inay arday noocan oo kale ah oo helaan waxbarasho heer jaamacadeed oo bilaasha. waxaanay aad ugu mahadnaqeen ururka dhalinyarada somalilan ee sodra iyo gudoomiyahooda sida wacan ee ay u garab istaageen dhalinyartani aan awoodin fiiga waxbarasho heer jaamacadeed. sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay dhalinyaro iyo aqoon-yahan kale oo isugu jira qaar ka mid ah waalidiinta carruurtooda ay maanta heerkan jaamacadeed ee bilaashka ay heleen oo iyaguna aad ugu mahadnaqay ururka dhalinyarada sodra. gebagabadii waxaa halkaasi si rasmiya heshiis ugu kala saxeexday ururka sodra iyo jaamacadda geeska oo iyadu noqotay jaamacadda ay ardaydani geli doonaan.
xukuumadda jamhuuriyadda somalilan ayaa deeq baabuura u qaybisay maxkamadaha gobolka murudijeex iyo togdheer xubintani oo faahfaahsan waxaa inoo hayaa ridwaan caydiid ismaaciil madashan deeqda saddexda baabuur lagu guddoonsiinayay maxkamadaha gobolada murudijeex togdheer iyo maxkamadda degmada hargeysa oo ay goobjoog ka ahaayeen wasiirka wasaaradda cadaaladda wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka iyo agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo mas-uuliyiin ka socday saddexdan maxkamadood ee deeqdan baabuurta la gaadhsiinayo wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha garsoorka somalilan mudane xuseen axmed caydiid ayaa sharaxay ahmiyadda ay deeqdan gaadiidka ahi ka tari doonto howlaha shaqo ee maxkamadaha deeqdan la gaadhsiiyey isagoo wasiirku caddeeyey baabuurtan ay ku jirtay miisaaniyadda sanadkan ee wasaaradda cadaaladdu ugu tala gashay horumarinta arrimaha garsoorka waa markii u horreysay ee gaadiid laga iibiyo miisaaniyadda qaranka ama lacagta qaranka maxkamadaha hoose la gaadhsiiyo waa markii u horreysay saddexdaa minibas looga iibiyey maxkamadaha qaalinimada ay tahayna waxa weeye dee iyadoo markii u horreysay ah waxaan isleeyahay mana ku filla mana dhowa halka laga doonayeen uma dhowin laakiin kolba intii dee awooddii inoo saabaxdo ayuumaynu haddii aan la idhaa dee tallaabsan doonnaa kula dardaarmaya mas-uuliyiinta baabuurtan aanu ku wareejin doonno inay baabuurtaasi gacan ammaanah loo dhiibo lagu ilaaliyo nidaam loo dhigo meel uu maraya waddo lagu ogaado uu maro oo uu ka soo shaqo tago markaa si aynu u dhiiri galayna qaranka inaynu waxayna xanaanaysan karno in la xanaaneeyo baabuurtaa la ilaaliyo intaasaa iga dardaarana agaasimaha guud ee wasaaradda cadaalad khadar axmed diiriye ayaa isaguna sharaxay islamarkaana iftiimiyey qorshaha horumarinta garsoorka iyo cadaaladda isagoo arrintanna ku tilmaamay guul u soo hoyatay wasaaradda cadaaladda xubno ku hadlayay mas-uuliyiinta maxkamadaha gobolada murudijeex togdheer iyo maxkamadda degmada hargeysa ee saddexdan baabuur ee basaska ku guulaystay ayaa caddeeyey baahida ay u qabeen gaadiidkan iyo waxa uu ka tari doono howlaha shaqo ee qaranka mas-uulka uga yihiin aad baan ku mahadnaqaynaa waana waxqabadka wanaagsan ee ka socda dalka iyo dadaalka wasiirka cadaaladda waana waxaan uga mahad celinay wasaaradda cadaaladda sida ay noogu garab taagan tahay inay wax noola qabato marka ballanqaadkaygu waa inaanu xafidano alaabtaas run ahaantii waa markii ugu horreysay laakiin wasiirka iyo dhammaan wasaaradda cadaaladda waxaan ku boorinaya inay noqon markii ugu dambeysay ka mas-uuliyahaadna insha allah waan gudan doonaa mas-uuliyaddeeda wasiir waa tahay daawadayaal waxaa la soo gaaray wakhtigii ama amintii aad daawan jirteen heestii barnaamijka aan ku soo xidhi jirnay heesta toddobaadkan barnaamijkeena waxaan ku soo qaadan doonaa fanaaniinta kala duwan ee khadrad daahir cige iyo xasan aadan samatar daawasho wanaagsan malafaan
هشروا شربيك إذا لبانتو هاي سفكرنا لبانتو هاي سفكرنا لقلقن تعايكي هيا هيا لقلقن تعايكي هيا هيا لقليمو عدايكونا هدا للاهيدو تدبيكو ردا لبانتوا ما سفكرنا لبانتوا ما سفكرنا لابتو القعركي هرسلي هرسلي لابتو القعركي هرسلي هرسلي اللحبان كعررة اللشان كدير فالوليدا كل سارة يلقى عين ملاسي اللبان لديرة اللحبان كعررة اللشان كدير فالوليدا كل سارة الحبان كضبعي قلبي يقول لها الشدا حسها لقد شدي الحبان كضبعي قلبي يقول لها الشدا حسها لقد شدي لحدا مرتيو الحوبة الذي جاء يا ليقوي يا لحدا مرتيو الحوبة الذي جاء يا ليقوي يا ليليقو بيهوداديا إلهيدو تدبيكو غوردا لبانتوا ما سفكرنا لبانتوا ما سفكرنا لابتو قعلكي هرسلي هرسلي لابتو قعلكي هرسلي هرسلي ليلقو يهودانيا وهشدوا شربيك إذا لبانتو يسكرنا لبانتو يسكرنا لابتو وقعلكي هرسلي وقعلكي هرسلي هرسلي وهاجاك داوديال wadoo daawanaysan heestaasi
aad kala socoteen telefishin qaranka somalilan iyo barnaamijka madhaafaan malla baan la diriiraa malugooyadiis iyo jacayl baan la liitaa waxay ka mid ahayd eryadii imka heesta awada daawanayseen ay inoo qaadayeen xasan aadan samatar iyo welibana khadra daahir cige toddobaadkan daawadeel barnaamijka madhaafaan intaasi ayaan kusoo gabagabayn doonaa barnaamijka dhinaca sawirqaadista iyo habaynta barnaamijka waxaa iska lahaa barnaamijka dhinaca sawirqaadista waxaa qaaday cabdi cumar jibriil salsal barnaamijkan waxaa halkan idiga soo jeedinayey anigoo khadar maxamed maxamuuda daawadayaal barnaamijkeenna barnaamij la mida inta kulmi doono dhankayga waxaan idinkaga tegayaa tusan iyo towbadda alleh